السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة هذا صاحب بيال ومركلة يو برنامج شيء إني مية كبح جري وصاحب بيال مانتا هل كان نسود دقني غيرك واجد عصب ويا مانتا والله حس ويان إن مانتا هل كان نسود دقني ما شاء الله وأدل برواقه كمشي بالتشوقاي dhulkan hadda maaragtay la degdegahay meelaha ugu qoyan maaragtay aan wali la daaqin weeye hore loo daaqin meeshan waxaa la yiraahdaa toon aqal waxa u dhaxaysaa meesha la yiraahdo xaasha lille iyo waxa u dhaxaysaa digali waxayna xigtaa xagga xaasha lille xigtaa waa dhul ciida oo in yar markaad socotoba waxaad geli barin madheedh meedhan ah sida kan hadda aan joogno oo kale waxa idin muuqdo waa madheedhkii markaad in yar socoto haddana waxaad geli dhul yar qolqol oo gabood meedhan ah halkan haddaan idinkala hadlayo waa toon aqal hareeri bay leedahay halkani waad arkaysaa geedkaas waa hareeri kan hadda aan hoos fadhiyaa waa hareeri kan weyn ee halkan ka muuqda isna waa hareeri weeye maasha allah saaxiibayaal soo dhawaada mar kale bal maantana waxaan isla arki doonaa haddii alla yidhaahdo dhulkan cusub ee uu reerku soo degay iyo hawlihiisa iyo maaragtay siduu wax u leeyahay iyo maaragtay bal insha allah haddii ilaahay yidhaahdo anu waa socon waa xilli yar duhurkii ah weeyaan anigu marka geeli baan kasoo daba tegay oo reerka xaggan soo yar dhaafay wiilashii waa iska seexdeen maanta dhan bay geel soo wadeen anu marka waa iska nasnahay oo dee waa iska nasnaa marka aad ma taabacaysnayn marka dhulkanna aad ma naqaano aqoonta dhulkan aad waan laga badiyaa marka niyo waxaan isri bal geeli inuu xasilay iyo in kale iyo ka daba tag halkan marka waxaan kusoo gaadhay guriga agtiisaba halihii dhalay waa kuwan dhirgihii way sogol yihiin dhirguhu oo meel ma kala aadahayaan waynu kasii soconaynaa haddii alla yidhaahdo oo geeli kalena haddii alla yidhaahdo kusii soconaynaa halkan waxaa ku yaalla arkaysaan waa geed bilcila oo meel ciidaho qurux badan ku yaalla geedkani waa gagaboodkii hoostiisa waran aadka uga buuxa waa gagaboodkii weeye waxaasoo dhan waa gagaboodkii geedkan la yiraahdo gagaboodka geelu waa cunaa aad buu cunaa geelu halkan waxaa idinka muuqata qaalintii caruus la baxday waa ina sahan hashaa kale iska ogoshahay halkan yaa garanaya asxaabe halkan waxaas waa saalo hore tan waa tu cusub oo xalay ah oo idin muuqato hatii xalay cusub halkan haddaad magaalo ku dhalatay garan maysi laakiin dadka miyigu way garanayaan meeshan sagaarada iyo guri u tahay waa xero sagaaro weeye sida ii muuqatana sagaara in badan fadhiisanaysay xalay u dambeysay way fadhiday halkaas sheeko yar baa ku jirto waxaa la yidhi hadda ka hor baa atoor guuyo waa sagaarada ninkeede ayaa waxaa la yidhi maroodi isku taagay baa layidhi ceel bay usoo wada arooreen baa la yidhi iyagoo xayawaano badana ceel kolka xayawaanada isku soo arooreen unbaa waxaa la yidhi atoor guuyo yaa laga baxsan waayey nag wallaahi baan laga cabinin buu dhihi ceelka meesha libaax baa jooga oo dhurwaa baa jooga oo maroodi baa jooga oo waa lagu dhan yahay garigii baa jooga oo waa la bariyey oo waa la afiyey oo nag
waa laga samray baa lii lawad oo atoor guuyo waxaa laga waayey war inaan adeerow meesha intaynu ka cabno aynu iskaga fullo yaa laga waayey nag markii dambe waxaa la yidhi maroodiga bahalka la yidhaahdo ayaa waxaa la yidhi bahalkan yarka eed maanta dhan barbaryaysaan bal niman yahow aan wax yar la faqo meelkan oo kale unbu intuu la tegey unbu xaar weyn oo aad moodo kiish cusbaa unbu madaxa dho kaga siiyey baa li horta atoor guuyo waxaa la yidhi halkiiba nafti kaga baxday hawshaa markay dhacday waxaa la yidhi qabiilka sagaarada la oran jiray yaa shiray baa lii markay shireen bay dheheen baa lii niman yahow maxaynu samaynaa ninkii atoorka ahaa waa laynaga dilay hebel ahaa maroodi baana dilay xaar buuna ku dilay marka saynu uga aarsanaabay iyay dheheen waxay isku raaceen talaa in xaarka la uruuriyo oo bah sagaara meel walbay joogtaba intii xaarka uruuriso kolku xaarkaasu isu tago in maroodi madaxa loo geliyo hadda ma xaar sagaara uruursami ilaa maalinkaa maanta bah sagaara xaarka sidin baa uruurinaysaa baa layidhi oo maaragtay xaarkii waa uruurinaysaa marka hawshaasi waa sidaa qolkana aad bay ugu baahan tahay waata mid kale waata mid kalaa taasa halkan geelii laba koorood baan kusoo dhaafnay koor afjeexa iyo koor alena koorta afjeexda waxaa qabta hal eeg geela dhalahaya ah oo fool ah hashaas way seetaysan tahay waxaana loo seeteeyey si aynan maaragtay u fool halaabin fooli waa matag baa layidhi fooli waa matag marka waa hal dabeecad waxay u leedahay kolka ay foolato hadday fooli qabato qaaraddaba way ka bixi xoolu intay fool halaabaan bay meelahan dhadhow ku dhalaan iyadu waxay samayn shardi qaaradda ka baxa dhale mayso adduun kale u geli marka hasha saasaa loo seeteeyey waa la seeteeyey hadda ka hor bay sidaas ku baxsatay oo tagtay intii dambe waa lala qabsaday oo kolka ay soo si dhaweyso maayar seeta dheer lagu qabano meel la aadi mayso hadday foolo qabato meesheedan bay ku dhali halkan waxaa ka yeedhahaya koorihii geela kale koortii weyneyd iyo koortii kale afjeexda ahayd geela kooro badan ma qabo geel koori waan ka gurray mar hadday gamashi gaadhay oo xilli barwaaqa ah oo maasha allah intuu soo maray u baahi beelay geela koorihiis ma badna aad uma badna marka koorihii geel waa yeedhyeedhayaan koortii weyneyd boodanka ahayd waa baxaysaa iyadaaba weliba koorahan ugu soo horeysa afjeexihiina dhinaca bidix ay ka yihiin qaalintani waa qaalintii hadda ka hor lugaha ka jabtay waana dalabeed way fiican tahay maalmahan aad bay u fiican tahay dhulkan hadda aan joogno waa isku jir waa dhul qol ah oo haddana mareedhkii leh marka waa isku jir baa la yidhaahdaa hareerigii waa in muuqdaa bilcilkii baa muuqda qansixii baa muuqda gagaboodkii baa muuqda wixii oo dhan baa muuqda hashatan dabkaa waxaa weeyaan dabkaa aad aragtaan iswareega ee halkaa ka yimaada halkaa soo mara halkaa soo mara halkaa soo mara dhinaca kale uga baxay dhinaca kalena wuu gaadhaa waa isu soo wareeg weeyaan wakaa dhanka kalena halkaas ka soo wareegsaday
ilaa halkaas dhinaca kale isaasu gaadhay. markaas sabaad gub baa la yiraahdaa. sabaad gub halkan intana ka barartay bari dhexdaas intana aad uga barartay. sabaad gub baa la yiraahdaa. waa laga gubay waana la naatay aad buu u fiicnaatay oo fiican tahay. koortani waa koor weyn weeyaan. way cusub tahay oo weli codkeedii aad uma soo wada go'in, laakiin waa koor weyn. hasha marka waxaa loogu yargaabiyey inaynan maaragtay hashu waxaa loogu yargaabiyey hashu inayna siibin, laakiin si fiican bay maaragtay u luxdaa maasha allah. ka siiban mayso. koortii boodaanka ahayd weeyaan. koorta kooraha kolka la yiraahdo koorta madaxdooda weeye. madaxda koorta weeye. wax walba waxay leeyihiin wax ugu sarreeya oo aan la dhaafin bay leeyihiin. koortani waa kooraha madaxdooda weeye. koor ka weyni ma jirto, koor ka qurux badani ma jirto, koor ka cod weyni ma jirto. geela loo xidhana koortan waxaa khasab ah geelaasi inuu tiraba horta waa inuu 60 dabada dhigaa. weliba geela curadiisu waa inay korfoofkiisa aan dhehe korfoofkiisu waa inuu 40 ka badan yahay. waa sidaan ugu aaminsanahay. koortaasi waa koortaa weeye. bari dhaweyd koortii geelu qabee tan oo kale ahayd kaliishii baa la waayey, meel la meelay gashay. marka waxaa la leeyahay waa la furtay oo niman doola baa furtay baa la leeyahay. ama hawshaa kuma dambaabi karo. inay siibateen waa laga yaabaa. marka dambaan haddana iska soo qorannay oo tii hore ninkii qoray baa weli jooga oo maaragtay aanu isnaqaanaan saaxiibanahay. marka ninkii taleefon baan u diro waxaan ku wari warniyo koortii weyneyd baa geela ka luntay. dhib ma laha buu yidhi tukalaan soo qorayna insha allah. muddo yar gudahood baa haddana tan uu ii keenay ii soo dhiibay. waa nin fiican oo saaxiibkaya allaha barakeeyo. gacantiisa allaha barakeeyo, gacanta allaha u barakeeyo. kharash xataa igama soo qaadan. wuxuu igu yidhi wax alla waxaad ii garato adigu saaxiibtinimo aad igu garato yaan kaa qaadan buu igu. laakiin waa wanaajiyey saaxiibkay. waa wanaajiyey si fiican baan u wanaajiyey. wuu soo wacay wuxuu igu yidhi wareedha waxaad ugu tala gashay buu yidhi saaxiibtinimadan inayna weligeed gu'ine. maxaa ula jeedaa baan ku idhi. marka wuxuu yidhi oo lacagta ii soo dirtay lacag badan bay ahayd. saaxiibtinimadeena ka weyn baan ku idhi saaxiib. geedka hashan daaqaysa saaxiibayaal waa himirmadow. himirmadow mar hadday faraqaa leedahay maxaad ku taqaanaa dhulka himirmadow hadday weli faraqii leedahay. dhulkan waa cosab weeye. lagaba kari mahayo geela mar hadduu himirmadooda ku arko. hashan waa qal yar. hashi qodobkaan u xidhaynay maalinka dhaweyd. guul labaad baan iyadoo markaa rintay soo iibiyey. hashan waa marcurad hore. marka kolkan soo iibiyey waa qabaysay. roobkii dayrta ka dambeeyey haddana waa rintay haddana way qabaysay. guwana hadda way rintay. marka qodobkaasaan u xidhnay. qodobkaasay qabtaa insha allah haddii alla yidhaahdo. sanadkan nabad bay ku dhali doontaa biidni illaahi kariim. weli saaxiibayaal geeli baynu dhex soconnaa. korihii 2 koorood oo geela xaasku uu qabo oo aan isleeyahay dhinacan idinka yar jiraan baynaa weli arag. waxaan malayn inay fogeyn. laakiin geelii fadal dheerta ahaa ee rimada ahaa koorihiis waa wada aragnay. geelaas waynu wada aragnay koorihiisii. koorleyduna waa iska joogjoogaan meel aadi mahayaan.
عشان dhiig baan ku aragnay sabiisheeda ka daadanaya marka maanta kolkii raggii geela yaqaanay aanu tusnay waxaa la yidhi hashantada sabiisha waxaa ka fadhatay baa la yidhi jiridana waa shimbir ninkaan aqoonin shimbir yar oo geela fadhata weeyo shilinta ka gurata laakiin dhibkeedu waxaa weeyaan meel booga hadday aragto way sii fadhan meeshii boogta ahayd bay sii danqi way sii weynayn meeshaas waxaa laga yaabaa inay caabuq keento neefkuna dhaqaaqi mahayo inta bahashaas ay fadhanayso xanuunsanba mahayo waxay ku afuuftay iyo mooj si ay yeeshee yow neefku dhaqaaqi mahayo marka laac iyo geela mar haddaad aragto geel waa dhan yahay geel qaar waxaa jira haddaad aragto aad garan inuu geelaasi dhan yahay geel hadda waan la soo afureegnay madaxiisii waynu dhaafnay halaashii geel ugu horreyso waata waa qaalintaa yarta ah waa geela hadda rimay maasha allah geel waa xasiloon yahay si fiicanna wuu u daaqahayaa labadii koorood ee xaaska ahaa ee ayna arag waa kuwa horta inay ka muuqmuuqdaan qaalintani waa qaalintii hadda ka hor aan gaadhiga ku qaaday markay dhalatay waana dabac hadda way rintay insha allah haddii ilaahay yidhahdo guungugiisa dhali doonta wataa goojinaysa taa arkaysaan meesha ka goojinaysa somaartan saynta taagayso geela kaliisaba rime weye kaliisaba tiftii horeba geela rime weeye geela baashiisii baynu joognaa geela madaxiisii baynu joognaa digtana waa ina laac ashii laac ahayd baa dhashay dheerayd iyadana waad aragtaan baan u malaynayaa wadadeedii bay haysaa ka gaabnaan mayso inay ka dheeraateen mooye dib baan geela u yar waabinaynaa uu yar madax jabis baan ku samaynaynaa waxa la yidhaha waa madax jabinaynaa ha 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 hashatan daman baa la yidhaahdaa daman waa qaalin waxaa weeyaan marcurada hadda un curatay
geel dayr hore dhalay weeyaan markaa nirig bay wadataa maasha allah waa qaalin aad u wanaagsan weeye koorta waxa loogu xidhay iyadoo qaalina waa hal ilmaha hadday hesho aan kala jeclayn weeyaan geela iyo geel la'aanta marka saas koorta ugu qabtaa waa hal in iyada geelu daba gala mooyaane aan ogolayn geel inay geela daba gasho ma ogola geel hoosta cunaya waad aragtaan geel hoos cunaya haddaad aragtaanna ma jeelana geel marreelu ka soo guuray saa ula socotaanba ceelka marreelaha korkiisu ayuu ka soo guuray marka dhulkaa darantuu iska joogay in cabaaraba dhulkaa darantuu iska joogay oo waa jeel baxsan yahay marka dhulkan kada cosabka aan hadda wuu yimid kolley dadka miyiga joogi jiray baa garanaya marxalado kala duwan buu gugu leeyahay ama dayrtuba leedahay khasab waxaa dayrta marka qumaati loo barinsado meel la dego meel la dego qumaati loo barinsado geel ku wada rima jabada diraacdan intaan la gaadhin meel waxaa jirta ama geel u guuro ama reerku u guuro oo hargab fiican leh oo aad dhihi maasha allah meeshan maxay ahayd hadda ka horba soo noocan oo kale maanaan arag oo iskana qoyan cosabna abaa jirta meeshaas waa meelaha dooga ugu dambeeya intaan maaragtay jilaalka la gaadhin dadku ay maaragtay ku gamashadaan xilligii baa hadda lagu jiraa marka intaan anu ka aqaano waxaa jira dhowr geedi oo khasaba in la guuro geediga ugu horeeya waa kaliish marka dhulku uu waxaa weye roobka uu saa u hooraba meel baa la degi meesha kaliisha la degay marka waa laga guuri meel barwaaqo oo waxaa la degi maxaan ku dhahay meesha cabaar baa la joogi wixii xoolaha ku dhalahay way ku dhali wixii ku rimahayana way ku rimi waa la barwaaqaysani oo marka cirku ka fajiyo ee roobku istaago weeye yaan ka hadlayaa intaa waxaa ku xigta gamashi baa ku xigahaya oo gamashigaas waa kan hadda aan ku jiro marka aad iyo aad haddoo kale manaha geela sidiisa bannaanba geela iyo ariga iyo way kala duwan yihiin haddoo kale gamasha geela waxaa la geeyaa meel aan hore cag u marin oo cosaba oo hargele halkaa waxaa weeye wuu biyuhu ku cabi oo markuu xoogaa jooga waa la soo aroorin qaalinta u dambaysa marka halkaasi ku rimi oo ku buurin rtigii markaa qooq dhigay oon aad u qooqanayn baa yaa sabada ku abaahay marka nin yahow dalka iyo dadka iyo waxaa weeye dunyadaba in la barto oo aad loo barto way fiican tahay soomaali baynu nahay inagu soomaali haddaynu nahayna dhaqankeenni waa ka dhaqan kale ma lihin inagu soomaali haddaynu nahay dhaqankeenni waa ka wax alla wixii kale ee aan samayno waa yar khasab weeyaan waan iskhasbaynaa oo waa yar kadeed weeyaan marka hadda ka hor qaalin aan idinku yidhi ma garanaysaan iyadoo yarar baan suntay oo waan idin tusi doonaa intaan idin yidhi aanan idin tusin cajaladda aan idinku tusin qaalintii waatan niman yaho bal iga qabsada hashaa weyn weeye maasha allah geela yaraanta in lagu sunto
wax ma yeesho wakaa sumadii aan ku dhigana wataa luqunta kaga taala wataa hasha weyna maanta macanasan welibana waat ma dhaqaaqayso taa ina salaamayso waa in salaamaysaa hashaas waa in salaamaysaa niman yahow waana qaayib iyadoo yaroo tabar yar baan suntay sababtaan u suntayna waxay ahayd hooyadeed baa xilligii ay rimaysay joogtay marka anigu sideedaba kabil hadduu neefku gaadho oo aaran yahay inuu sumad la-aan noqdo ma jeceli sumaddaa yaree miinanka la yidhahdan ku dhigayaa miinan baa la yidhaahdaa iyo shiidhakaarka midigta ah sumadaydu wataa geela wixii labadaa miin iyo shiidhakaarkaa niman yo hala soo qabto meel walba oo la jooga hala soo qabto geela hooyadeedna waata qaayib baa la yidhaahdaa qaayib labada miin shiidhakaar uma weheliyo oo doobashiida u weheliye saad u aragtaan waa geel hore oo kaana ahaa oo macnaha geeli aabbahay sumadii lagu dhigi jiray weeye anugu geeli aabbahay sumadii lagu dhigi jiray doobashiidadaasan ka bedelay sababtoo tahay doobashiidadu waxay ku yaalaan saa aragtaan ma meel laabata ah marka niman yahow waxay keeneen cillada inayna bogsoonin aad u dhaqso u bogsoonin neefka miinanku wax yeeli mahayaan waa luqunta turbo way bogsan laakiin doobashiidadaas ciyaar kuma bogsadaan meeshana waa laabata waad aragtaan sababtaasaan uga bedelay hashani waa hashii aan la gaday habarta samuud aan idinka sheekayn jiray aan dhihi jiray iyadoo habarahoo weyn baan gadayoo laba qurbac bay isku xijisoo lacagta hasha aan soo celiyey hashii la socotay aan ku lahaa laba halaad baa geela ugu jira qaalmo ah waa hashan weeyaan samuud baa dhashay habartii baa dhashay marka geelan waa isku fir weeyaan habartii samuud hayd baa dhashay qaayibna waxay dhashay qaalintan hadda aan intusi hayeen ku lahaa yaraan baan ku suntay oo iyadoo yar baan suntaan idin lahaa waata sheekaduna waxayba ku timid batan walaasheedan yarta ee suntan soomaalit ilmahan yanka ee sakaraadka labadii miini shiidhakaarkiiba waa ku dhigay balday madaxa dayaambada foolxuma ku disha balday alla show maxay hal noqon doontaa laakiin horta xooluhu niyow sida dadku kale kala qurqurux badan yihiin rigtan ma aragtaa far ilaahay ma horta ku taalo laakiin kaasoo way ku dhacday miinankii baa ku dhacay miinan welibana khataraa ku dhacay oo faashoona xagga sare iska yar qabsaday luqunteedoo yar awgeed bay xagga sare iska yar gaadheen marka xooluhu inayna yaraanta haddii lagu sunto aynan waxba yeelin baan macnaha sheekada ku keenay markhaatigeedina waxaan ka dhigtay qaalintan walaasheeda marka ujeeddadeedu waxaa weeyaan neefkaagu hadduu gaadho kabil oo hooyadii saasoo kale u goojiso saa hashan goojinaysaa dhashay dhigtan xuntaa waxaa weeye marka hashaas goojiso laab bay ku dhufanaysaa ilmahana markii hooyadii laado geelasha kaloo iska raacayaa 3 bilood hadduu kaa maqnaado garan maysid adigii uu kaalmay garan maysid war ilma sumadle ayaa arkay dee ilma sumadle ayaa arkay waa maxay mar horaaba lagu dhigaybe yaa bahal wiilaaba hadduu rabo 2 farood iyo yuu ku jiid iyo falleedh marka waayadii waa la midab rogay waayadii waa la midab rogay hadda ka hor baa waxaa leeyahay nin baa yaa wadaanta baasha la yidhaahdo yuu dhacay baa leeyahy nin buu ka dhacay wuu xaday markuu xaday baa yuu yidhi wadaantintada niyahow seed yeeshaayo ninkii lahaa yuusa kuu garanne saa intuu qaaday buu dhinaca kale ka rogay dhinaca uurka jiray ee gudaha ee biyuhu galahayeen iyo korka soo mariyey korka markuu soo mariyey
waa rartay gacanta kaga soo qabsaday kii wadaanta lahaa yiba yidhi warkaal geela la waraab ninkii baa dhihi wadaanta haadina waa u eg tahay niyow waxna waa ka siiya waa noocma saa kii baa yidhi niyow wadaantan maxay ahayd wadaantaydiina ma ahee wayna u yar eg tahay kii baa marka heesay wuxuu ku heesayaa waa iyadii waa la midab rogay waa iyadii oo wa la midab rogay buu odhan waa iyadii waa la midab rogay bahal asalu ku dhuftay bahal asal intuu ku dhuftay wuxuu dhihi waa iyadii waa la midab rogay ha intuu saa uga jaro markan iyow walaashii qurxan ahayd miyaynan dee dhogor cad ku dhalin niman iyo dhogor cad miyaynan ku dhalinin ashani waa geelaan sheegaya maqash ka baxday oo xanuun bay soo martay fara badan haddase maasha allah bay ku jirtaa waa iska barwaaqaysan yahay niman waa iska barwaaqaysan yahay halkan kada nimca taala halkatan nimca taala yaa nin ilaahay ka qariyey mooyaane halkan kada niyow bahal qorax oo fitamiin horta way taala fitamiin yaa tay meeshan oo kale weliga ma artay geed bilcilaa ku ooli jira waa uu daatay marka halkan waa meeshii waxaas waa biyihii ma garanaysaa saa u jaray halkan waxaa iga muuqda niman yahow wixii rag waayey geed bilcilah oo hoostiisa gagabood iyo canduura ku taallo oo dhinaca bidixaana qasax yar ku leh hoos galabeedkiisa nagaarmac badanna ku hoos taallo in yaroo xaadhanaad moodana adee lagugu talagalay iyo dudumo yaroo bahalka kadafshiirka iyo waxgalgalaana ku ag taallo adeer waxaasi waa wax rag waayey rag waayey waad ka sheekaynaysaa ragba ma hayo arbal halkan dhoo yaa magaaladaad iska joogtaan oo niman iyo magaaladan baad iska joogtaan ka soo bixi maysaan magaalada waa la joogaa waa laga shaqaystaa laakiin marmar baa madaxa laga soo qaadaa baasha niyo marmar baa dee dhulka qumana islaamka alla yimaadaa meeshan tadaniyow waxaa ka jira hawlo badan oo maasha allah aada u qurux badan ninkii dee kusoo kore garanayo unbaa un garanhaya waryaa dee dufnoodkii wakaa waa dufnood waxani dufnoodkii sooma garanayso cabdow wakaa dufnood ciideed baa la yidhaahdaayo waa dufnoodka ciidda weeye saaxiib intaasu daylangeelu afka ah maalin dhow isagoo afka dayla maalin tusi doonaa halkaasaad iska seexanoo maasha allah horyaadha saaxiibayaal horyaadeen barkin iyo waxba uma baahanaysid maasha allah wax barkinaad u baahanaysaa ma jirto dhegeysta nimayo wax barkina oo loo baahan yahay ma jirto aniga maqal saaxib mid barkin ah looma baahna ma garatay kama iska seexan waa iyadiyo waa la midab rogay waa iyadiyo waa la midab rogay waa iyadiyo waa la midab rogay karka intada aarsaa isaga sii daysata hooy ugas shaarabadan aad iska xirto sunnaha nebiga raacdo
dhulkaaga hooyo iska timaadin adeer alxamdulilah alla ilaahu noo siyaadi alla ilaahu noo siyaadi maasha allah hurdaan la dhacsanahay been iska seexda mooyeeg waan yar gamaya waryaadha waan yar gamaya war saaxiibayaal waa iska yara seexday maasha allah haddaan soo kacay xoogaa naaba baan ku qaatay geel dhexdiisii geedkani hooy geedkani waa himir madow geedaan jeclahay ku jiraa geedkani kana waa himir cad isku garab yaalaan labadan geedba himir baa la yidhaahdaa kana waa himir cad kana waa himir madow maasha allah geeli waa anigii markii dhaweed madax jibinay waa anigi madaxa ka jiifay marka xoogaa naab baan iska soo qaatay haddana maaragtay dib baan isugu yar ururinaa isugu yar rogeynaa waan sii dhex maraynaa insha allah haddii ilaahay xaggee xaafaddii baan ku noqon doonaa wiilashiina waa soo dabamari doonaan haddayna hadda geelaba igu dhex umanin halkan kureed baa daaqaysa kureed haashani waa kure geel dayrinka ka mid ah kure ha kaadaas waa difaac weyn difaac afka reer magaalka hay taaban beleedahan iska daaqe kaniyo geela waa iskaga tegaynaa geela lama rogrogo aada looma rogrogo iska xasiloon iska dhigaaman yahay maasha allah iska maarata iska daaqo iska dhigaaman yahay bahalkuniyo meeshu iska joogahayaa reerkii baynu gaaraynaa iska casriya doonanaynaa insha allah geelu seen waraari weye ma maqasho seen waraari ma hadduu seenta saa u waraariyo markii waxaa weeye niyadiisu maasha allah uu de u dhigaaman yahay seen waraari dhaba halkan aynu qaadaynaa oo xaafadda gala ama reerka gala waxyarba hadda inoo jiraa
halkan waa dhulka yaraanteedii ugu dambeysay meeshani muddo dheer bay ugu dambeysay dhulkan niman yahow dee 8 sano hadda dhulka aan joogayna chance uma helin dhulkan aan ku imaado oo dhulkan waa dhulkii hundaha ahaan jiray markii guur barwaaqada uu yahay la soo degi jiray lagu gamarsan jiray beeraha lagaga ag dhawaan jiray haddii rabbi xog mahayo halka inta lagu gamashado oo beeraha lagu goosto oo haddii allaba kuu roon yahay halkaa xagaaga la deganaado xagaagaasoo dhanba yaa dayrta dambe ma aragtay dayrta dambe markay da'do iyo xaggaa loo noqon jiray iyo xarxuntaas iyo xaggaa loo noqon jiray marka bahalka mareerka ee damta ay leedahay maasha allah meelahaan ugu jeclahay dalka waxaa ka mid a meeshan oo kale day waa geed qansaxa oo hoostii kaliisha ma garan kaliisha reyski iyo geel hoos fadhiistay marka dibna looma fadhiisan fadhigii baa ka muuqda geedkii cosab ana waa iyo hooskiisiina waa isku baxaan waa meelaha naftu waxa weeye ay jeclaysato weeye yaa meelaha ay naftu jeclaysato weeye dhulka waxyaabahan uga maarmi lahay ka mid tahay niman yahow lagama helo meelahan jooga lagama helo waxaa niman yahow yaa niman yahow waxaa lagama hela meelahan joogo brick wall baa iga hor imanaya meel walba brick wall baa waxay ku leeyihiin yaa waa brick wall bay ku leeyihiin moogta yaa dhagax bay kaa horkeenayaan meel walba iyo geedo qalaad oodan garanayninba waa ood garan inaan waxba loogu talagelin dee geed nooc kale u rahayo hawada turqahay maxaa u diiday dhulka gagaboodka maxaa u diiday waanu iska yar joogjoogahayn midgoon badana baraafuunadaaba laga samayn lahaa maasirkan isaga iyo bahalkan la yidhaahdo subag shiilka iyo alla geeduhuniyo caraf badana maasha allah geedkan yaa garanaya geedkan isaga yaa garanaya geedkaa cadcadoolaa la yidhaahaa cadcadoole hoy cadcadoole ayaa la yidhaahdaa geedkaa halkan waxaa weeye maaragtay xaafaddii baan iska aadaynaa waa iska shaahaynaynaa geel iyo waxbaan iska odoodi doonaa wiilashu insha allah way soo dabamari doonaan iyaga soo ururin doonaan inkastoon jeclahay galabtaanu inaan dib usoo noqdo oo niyahow ood iyo waxaa igama haysaba wiilasha mid baan dhihi doonaa insha allah geel yar qaar bal horta caawa dhig yaa halaha dhalana meel yar u qaado horta waxa kale hay dambeeyaan yaa dhulku waxba in loo dhacmiyo geel uma baahna waa dhul barwaaqa ah dhurwaana ma laha dhurwaa iyo waxaa ma laha arigu dhurwaa ma leh marka caawa kale waxba xeradiisa laguma degdego xerada berri iyo waxaasaa laska ootaa berri iyo saa dambe iyo kale yaa laska ootaa ma garanaysa iska soo fadhiisan oo la sayidi buu iska kaakici oo waa kuwa irmaanka maaragtay iyo yarku soo kakaxayn la sayida hore dib soo rogrogo aroorta hore halkaas intii la maalmaalo haddana iska dareeri marka niyo
إلهي بقى نقول سمي wax lagu alxamdulillah istaway wax lagu alxamdulillah istaway والخياري مركا بل إن شاء الله هدي لها يرهدو حنا قدم بيا ونخوة سعون دونا هدي لها يرهدو هذا هوس بان سقسي سعونا هي حقا سيراكي اسمغل دم إن شاء الله هدي لها يرهدو دي بين اسمغل دونا halkan kadaay waa toon aqal sidan hore barnaamijka idinku sheegay bilowgiisii waana ceelka xaashaali iyo magaalada la yiraahdo Digli oo hadda magaalada Digli oo hadda magaalada dhexdooda weeye xagga xaashaalana waa xiga dhulkani warkaniyo sida weeyaan aynu halka aynu ka soo socono